أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وصلى الله على نبي الله عبد الله رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. kulanti wanaagsan qaar sharafta leh ee igala socota bogey kala duwan ee social media iyo maaragtay website Yusufba. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waa Sayd Cabdiraxmaan oo idila soo dhawaada insha Allah khiyaaray haddii Ilaahay idmo. maanta waxaan qaadanaynaa cashar yar oo taariikh ah isla markaana ka mid ah casharada maaragtay haddii Ilaahay idin rooyay quraanka lagu sheegay. maanta waxaan insha Allah tacaala waxaan ka warramaynaa taariikhda gaalkan aduu markii dambe dee gaal noqday oo Ilaahay halaagay ninkan la oran jiray Qaaruun yaan ka warramaynaa insha Allah tacaala. Qaaruun wuxuu ahaa qof ka mida maaragtay dadkii qowm Muusa ayuu ka mid ahaa. ninkan Qaaruun la oran jiray saan carabaabay reer bani Israa'iil ayuu ka tirsanaa berigii ay reer bani Israa'iil ku jireen adoonsiga ee uu gaalka Fircoon gumaysanayay. waxa uu ka mid ahaa dadkii farakutiriska ahaa ee Fircoon xiriirka hoose la lahaa, isla markaana maadaama uu aad iyo aad ula shaqayn jiray Fircoon laga dhigay hadduu Ilaahay kuu roon yahay nin maalqabeena aad iyo aadna xoolihiisu ay maaragtay ay u fara badnaayeen. culimadu waxay sheegtaa in Qaaruun ay rasuulullaahi Muuse calayhi salaam ilmaadeer ahaayeen ama ilmaabti ahaayeen ama adigu say tahayba waxaa la isku wada raacay inay guud ahaan isagii nebi Muuse qaraabo ahaayeen. kolka ninkan Qaaruun la yidhaahdo run ahaantii wuxuu ahaa nin cajaa'ib ayuu ahaa. maaragtay Qaaruun waxa uu ahaa khiyaaray nin ku lacagaystay hadduu Ilaahay idin roo yahay shaqaynta uu shaqayn jiray gaalkii Fircoon ahaa ee markaa addoonsanayay reer bani Israa'iil ayuu maaragtay u shaqayn jiray. waxaana la sheegaa in maaragtay dahabyo fara badan oo gaalkii Fircoon ahaa iyo aali Fircoonku dahab ay lahaayeen inuu hayn jiray. sidoo kalena waxaa la sheegaa inuu ka qayb qaatay macnaha maaragtay xasuuqii faraha badnaa iyo dhibkii loo geystay reer bani Israa'iil. si kastoo ay tahayba Qaaruun waxaa dhacday inuu reer bani Israa'iil iyo nebi Muuse calayhi salaam uu maaragtay markii dambe inuu rumeeyey baa la sheegaa rasuulullaahi Muuse. dee wuxuu qarsanaya Ilaah baa naga og, laakiin culimadu waxay yidhahdeen waa muslimay, wuxuuna yidhi muslim baan ahay. kadibna waa kii reer bani Israa'iil ay ka qaxeen gaalkii Fircoon ahaa oo badda cas tallaabeen. kadib markii Ilaahay subxaana wa tacaala badda cas ku halaagay Fircoon iyo askartiisii iyo Haamaan iyo kulli wax alla wixii meesha xukumayay oo dhan, Qaaruun reer bani Israa'iil buu maaragtay ayuu u raacay meeshii ay tageen oo ah dhulkii saxaara ahaa. kadib waxaa dhacday waa kii meesha joogeen, waa kii qur-aanka alla subxana wa tacaala noogu sheegay in la yidhi baytulqudus gala oo jihaad kaga qayb qaata. waa kay diideen, waa kay ka hor yimaadeen nebigii. kadibna waa kii nebigu u sheegay in lagu xukumay 40 sano inay dhulkii saxaraha ahaa ay iska daba weydaarsadaan. kadibna halkaas ayay deganaayeen. Qaaruun halkaas ayuu la deganaa. haddaba waxaa dhacday markii alla subxaana wa tacaala uu sekada ku waajib yeelay reer bani Israa'iil ayaa uu nebi Muuse u yeelay Qaaruun, wuxuuna ku yidhi sakaa kugu waajibtay, sekadii baan bixinaynaa. markii hore waa uu yeelay baa la yidhi. culimada islaamku waxay tidhaahdaa macnaha waa uu yeelay waxba kama qabo yidhi. kadibna markuu gurigiis degay baa la yidhi ayaa waxaa la yidhi calculation buu sameeyey ama xisaab buu sameeyey. xisaabtii markuu sameeyey ayaa wuxuu arkay sekada isaga kusoo aaday maadaama uu yahay nin dee maalqabeen isnacay ahaa inay tahay xoolo aad iyo aad u fara badan. kadibna waa uu diiday. hase yeeshee nebigii si toosa maaragtay ulama u hortegin ee wuxuu bilaabay inuu nebi Muuse maaragtay dacaayad iyo shirqool u sameeyo. waxaa la yidhi kadib in dadkii isaga maaragtay dee la jiray, ninkani maalqabeen buu ahaa, dad badan oo taageeri jiru lahaa, ayuu u yeeray. kadibna wuxuu yidhi Muuse wuxuu doonayaa maaragtay inuu barwaaqadeenna iyo khayrkan iyo xoolahan haysano uu naga qaado, uu meel aynaan garanayn geeyo. marka ninkan waanu iska qabanaynaa. soo maaragtay durbaba macnaha caasinimuu bilaabay inuu rasuulkii Ilaahay caasiyo. kadib waxaa la yidhi haweenka jirkooda ka ganacsada ayuu u yeeray baa la yidhi. lacag badan buu siiyey. wuxuuna ku yidhi waxaad tidhaahdaa nebi Muuse ayaa xumaan igu sameeyey, saas oo kale fara xumaan igu sameeyey.
kadib isagoo hogaaminaya dadkii isaga taageersanaa oo in badan odayaashii reer bani israa'iil ka mid yihiin ayaa waxa uu yimid nebi muuse markaasaa wuxuu yidhi nebi muuseow xukunku muxuu yahay ninka sinaysta ee naaqaba rasuulullahi muuse wuxuu yidhi calayhi salaam ninkii sinaysta ee naaqaba waa in dhagax lagu dilo fiir hadda meeshuu socday dagaalkii uu la galay sekada ilaahay amray ayaa uu bedelay dagaal shaksiyeed uu la galay nebi muuse calayhi salaam waana meesha halaagiis ka bilowday kadib waxaa dhacday marka dadkii buu yeeray wuxuu yidhi haye waatan haddii naagtan aan haynaa oo tiri nebi muuse waxa igu sameeye ka warrama annagina wuxuuna leeyahay saas weeyaan kadib nebi muuse calayhi salaam aad buu xanaaqay nebi muusena waa uu dabeecad kululaa kadibna wuxuu yidhi haweenaydii igu yeera haweenayday markaad igu yeedhaan buu yidhi waan weydiinaya hadday tiraahdo waa runtaa muusow waxa waad igu samaysay waa say arrintu u dhacday kadibna haweenaydii baa loo yeeray haweenaydii markii nebi muuse u timid ayaa uu ku yidhi ilaahay baan kugu dhaarshiyey maanaa waxaa kugu sameeyey haweenaydii waa ay naxday nebi muusena addoon burji badan buu ahaa oo dee maaragtay uli casmiga shanta ambiyada ee ugu waaweyn ku jira shanta ambiyada ee rususha ilaahay ugu waaweyn waxa weeyaan koobaad rasuulullahi maxamed sala allahu alay wasalam aduu sida culimmada waaweyn aan ka aqriyay u kala darajo wen yihiin rasuulkeenna waa kow nebi ibraahim calayhi salaam muuse 3 ciise 4 iyo nuux 5 shantaa weeyaan rasuulkeenna waa ugu darajo wen yahay sala allahu alayh wasalam soo waxa garateen maaha hadda xadiis baa jira uu nebigu yidhi sala allahu alay wasalam ha iga fadilina rususha kale ilaahay laakiin macnaha waan soo gaarsiinayaa laba dhinaca kolka nebi muuse nebi saasuu ahaa haweenaydii waa ergagaxday waa ay naxday waxay tiri muuse waa been waxani qaaruun iyo dadkiisaana lacagii siiyey maaragtay waxayna igu yidhahdeen saa samee kadib nebi muuse waa uu habaaray ninkii qaaruun ahaa kadibna halaagiisa halkaas ka bilowday intayna aayadaha gelin qaaruun 2 3 4 jeer ilaa 3 adu qur-aanka dhowr jeer baa lagu sheegay qaaruun qur-aanka dhowr jeer baa lagu sheegay mid ka mida meelaha aayadaha suuradaha lagu sheegay hadduu ilaahay idin roo yahay waa suurat alkaafir oo ilaahay yidhi subxaana wa tacaala fircoon iyo haamaan iyo qaaruun nebi muuse ayaa aayaad cadcad ula yimid markuu yimid aayaadkii markuu ula yimidna waxay ku yidhahdeen waa sixir marka ninkana weligiiba fircoon buu shaqayn jiray xataa markii uu reer bani israa'iil galay uu raacay raacidda reer bani israa'iil waxa weeye dee dhalasho ahaan buu reer bani israa'iil ahaa laakiin qalbiga iyo waxaa kale nin reer ali fircoon u ahaa marka meesha qisadiisa ugu dheer hadduu ilaahay yidhaahdo ayaan maaragtay maanta idiin sheegi doonaa suuraddanna waxa weeye waa suurat alqasas oo ad ogtihiin looga sheekeeyey dhalashadii rasuulullahi muuse calayhi salaam suu ku dhashay iyo taariikhdaas oo dhan maaragtay alqasasna macnaheedu waxa weeye waa qisooyinka af soomaaligeenna kolka waxaan ka bilaabaynaa suuradda alqasas aayadda 76 alla wuxuu yidhi subxana wa tacala acuudu billahi min ashaydaani irajiim ina qaaruuna kaana min qowmi muusa qaaruun wuxuu ka mid ahaa qoladii ama qoomkii nebi muuse fabaqa calayhim kadibna waa uu ku kibray iyagii waa uu ku xadgudbay alla wuxu uhi subxaana wa tacaala wa aataynaahu min alkunuusi waxaan siinay qasnado iyo maal aada u fara badan maa in mafaatixahu oo furayaashooda latanuu bilcusbati ila alquwati ay ku cuslayd bilcusbati waa culays ay ku cuslayd furayaashoodu waxay ku cuslaayeen rag u saaxiiba quwad macnaha rag xoog leh rag badan oo xoog leh ayaa qaadi jiray kadib waxaa dhacday marka ninkaasi taajirka saas ah ilaahay yidhi subxana wa tacaala maalkaa faraha badan baan siinay oo furayaashiisa hadduu ilaahay ku roon yahay ay qaadi jireen ay ku cuslayd macnaha rag badan inay qaadaan waa furayaasha keliya maalkii ma aha maxaa dhacday marka alla wuxu uhi subxana wa tacaala id qaala lahu qowmuhu markay qoladiisii ku tiri laa tafrax ha farxin kay erigan ha farxintan aayad kalena way ahayd macnaha way soo socotaay macnaha waxaa lagu yidhi ha farxin ina allaha laa yuxibu lfarixiin ilaahay ma jecla kuwa farxa waa maxay marka farxani waxa weeye waa adduunyada oo la jeclaado xoolaha oo loogu qooqo kibir la kibro ingiriiska boasting waxa la yidhahdo ama lagu faano addoommada ilaahay ee maaragtay dhaqaalaha xun oo la caayo adigu waa kibir iyo isla weyni lagu farxo weeye ogaada hadda suuratu yunis anna wuxuu yidhi subxana wa tacaala wuxuu noo sheegay oo ina faray inaynu ku farxano qur-aanka iyo hanuunka iyo nuurka laakiin adduunyada iyo lacag iyo xoole iyo waxan iyo wax alla wixii ilaahay si gooniga kuu siiyey ood
addoommadiisa kale ama dadkiisa kale dheer tahay inaad si gooni ugu farxdo oo adduunyo ku tacalluqa way reeban tahay. kolka dadkii waxay ku yidhaahdeen laa tafrax ha farxin oo ha ku faanin ina allaha laa yuxibu lfarixiin ilaahay ma jecla kuwa adduunyada ku farxa ee ku faana macnaha waasaan idiin sharaxay. dadkii iyagoo sii wata waxay ku yidhaahdeen ninkii qaaruun ahaa wabtaqi fima aataaka allahu wabtaqi u dalab oo macnaha raadi oo u adeegso fima aataaka allahu waxaa lagu siiyey daarul aakhirati nolosha aakhira u adeegso. akhyaare ogow markastoo maalkan iyo awlaad iyo wax walboo lagu siiyey allah subxaana wa tacaala waxa uu doonayaa inaad u adeegsato nolosha dambe ee aakhiro. waxaad ogaateen ingiriiska luqadda ingiriiska aakhira waxay yidhaahdeen after life soo maaha fiiri after life bay yidhaahdeen erigaas waa khaldan yahay waxbaan tusahayaa maanta hadduu ilaahay yidhaahdo waxay yidhaahdeen after life soo maaha after life. okay after life haddaad tidhaahdo waxa weeye macnaheedu waa nolosha kadib haddee waxay ka dhigaysaa macnaha in tan keliya nolol tahay ta kalena dadku maaragtay wax zambi ah u egtee ma aha. ingiriiska runta aakhiro eriga aakhiro waxa weeyaan later life later haddaad ingiliishka caadiga africa iyo UK iyo saas oo kale ah ama amerikaanka later ama Canada joogta later life soo khiyaari ma aragtaan later life nolosha dambe. carabigana qur-aanka waa alaakhira alxayaat alaakhira nolosha dambe after life ma aha runtii waa later life waa nolosha dambe waayo noloshaasaa ka weyn noloshan waa nolosha alla ku tilmaamay subxaana wa tacaala inay tahay lahiya daar alxayawaan nolosha nool ee xayigaa weeyaan. kolka waxaa la yidhi wabtaqi fima aataaka allahu daar alaakhirati wixii ilaahay ku siiyaa la yidhi u dalab oo u isticmaalo u adeegso nolosha aakhiro ee dambe. waxaana la yidhi sidoo kale walaa tansa nasiibaka min dunya hana iloobin isla mar ahaantaan ha iloobin nasiibkaaga adduunyada macnaha maalkaagan qaybtaadan macnaha qayb ahaanna u adeegso adduunyadaadan oo si alla ka cabsile u noolo macnaha. dadkii qoomkiisa ka tirsanaa reer bani israa'iil weeye waaninaya waxaa kale ku yidhaahdeen waaxsin kama axsana allahu ilayka una wanaaji baa la yidhi dadka iyo ciddaad la nooshahay iyo dhaqankaaga iyo wax walba kama axsana allahu ilayka sida uu ilaahay adig ku wanaajiyey u wanaaji wax walba. iyagoo sii wata waxay yidhaahdeen walaa tabqi alfasaada fi lardi dhulkana fasaad iyo qooq iyo kibir hala doonin baa la yidhi soo ma aragtaan dhulka walaa tabqi alfasaada fi lardi dhulkana waxaa la yidhi hala doonin fasaad iyo qooq iyo kibir fi lardi dhulka dhexdiisa. ina allaha laa yuxibu lmufsidiin ilaahay ma jecla kuwa wax fasaadiya. waxaad ogaataan ilaahay subxana wa tacala qur-aanka laba ummadood buu inoogu sheegay inay yihiin mufsidiin oo maanta ilana nool. kan lagu leeyahay mufsid waad ogtihiin dhulka lala goyn doonaa aayaadka baa inoo imaan doonaa waayo labada ummadood ee adduunka nala jooga ee ilaahay subxaana wa tacaala hadda ka hor macnaha qur-aanka markuu la soo degayey waktiyadaa iyo ka horba alla u aqoonsaday inay yihiin mufsidiin ee maantan adduunka nala jooga ean weli la halagin. miyaa taqaanaan waa yajuuj iyo maajuuj iyo yahuud aayadda qur-aanka waa kay ahayd yahuuda alla soo sheegay subxana wa tacala wuxuu yidhi wayascauna fi lardi alfasaad yascawn waa socod waxay dhulka ku dhex socdaan fasaad bay dhulka la dhex socdaan waa yahuudda lama halaagin macnaha hala kala fardhiyo laakiin dee sida qaaruun la yeeli kalo ama fircoon badda lagu maansheeyey looma geli iyaga kow. aayaddii kale suuratulkaafi ku jirta oo casharkii yaajuuj maajuuj aan ugu horrey alla wuxu subxana wa tacaala ina yaajuuja wamaajuuja mufsiduuna fi lardi yaajuuj maajuuj dhulkay fasaadiyaan. labadan ummadood waa labada akhir zamaanka kharaabinaya waa labada alla la sugaya akhir zamaanka soo wax garatan ma aha. labadooduna waxay isku biireen waktigii nebi ciise ilaa 600 sano ka hor iyo waktigii nebi ciise ayay isku darsameen. maanta yahuudda iyo yaajuuj maajuujku waa hal ummad. yahuuddan israa'iil joogtana waxaa la yidhaha khazaar asalkoodana waa yaajuuj maajuuj khayra soo ma aragtaan. kolka kuwan qur-aanka lagu sheegay inay laba mufsidiin yihiin labana halaagina ka warrama alla aakhiro wakti kaleu la sugayaa ilaah baa garan. laakiin de xadiisku waa kii ahaa nebigu noo sheegay sal lla ly slam in aakhir zamaanka macnaha muslimiintu ay nimankan maaragtay tirtiri doonaan gebigoodaba yaajuuj maajuujna si alla loo tirtira alla gara waa raaca dambe raacraac bay u imaanayaan raaca ugu dambeeya nebi ciise waktigiisa la soo deynayo
la furi doono waa anigu waxaan aaminsanay fikirkayga waa shiinaha waana kuugu dambeeya nabi ciise baabiin doona dee in yarba meelaha ka hari doonta oo malaha fasaadka la qaybkaas laakiin yajuuj dambe oo xoog loo adduunyada saa yeela kuwaa kadib ma jiri doonto hadduu ilaahay yidhaahdo so waxa garateen ma akhiray kolka dadkiisi waxay yidhaahdeen dhulkana ha fasaadin in allaha laa yuxibu lmufsidiin ilaahay ma jecla kuwa dhulka fasaadiya jawaabsi fiiriya marka fiir dadku waa u waaniyeen waxaa la yidhi maalkan alla ku siiyey maaragtay u adeegsa aakhiro nasiibkaagana hayloobin oo maalkaaga ku noolow oo adduunyadana qaybtaada wanaagsan ilaahay siduu ku wanaajiyey u wanaagsano wanaag sameeya dhulkaa fasaadin xoolahana qooqa dhulkaa la soconin macnaha waane iyo caqli celin iyo mawcido wanaagsan baa la siiyey soo maaha fiirsada jawaabtiisa qaala qaaruun wuxuu yidhi qaaruun inamaa uutiituhu calaa cilmin inamaa si kalaba ma bahane uutiituhu calaa cilmin waxaani maalkan lai siiyey oon ku helay cilmigayga calaa cilmin cilmi baan ku helay cindii ani agteeda wuxuu yidhi cilmigayga anu aan samaystay aan alifay stagii iyo wixii aanu bartay sirtii financialka bartay sirihii bartay subxaan allah ayaan ku helay buu yidhi waxaan aayad kale ahayd subxaana watacaala uu inoo sheegay qur-aanka in dad waxaa jira ilaahay barya kadibna markuu alla siiyo waxay shalay baryootamayeen waaba sidii iyago oo aan shalay ilaahay baryayn oo kale marka waxayna sheegtaan waxayna yidhaahdaan waxaan cilmi baan ku helay waa kan maalka ilaahay baa iskale madaxnimada ilaahay baa le caafimaadka ilaahay baa le wax walba wanaagsan xagga lay ka yimaadeen xumaana nafteena shaydaan bay ka yimaadaan laakiin wax walba qadarka ilaahay la soco kolka wuxuu yidhi waxaad sheegaysaan anu ma aqaane maalkan aad leedihiin waa lagu siiyey cilmigayga iyo aqoonteedaan ku helay allah ka jawaabay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi awalam yaclam ana allaha qad ahlaka miyuusan ogeyn qaaruun ana allaha ilaahay subxaana wa tacaala qad ahlaka min qablihi inuu halligay ummado ka horreeyay isaga in la halligay miyuuna ogeyn oo ummadahaasoo milal quruuni ummado badan ahaa milal quruunmo fara badan ummado badan ahaa kuwaasoo man huwa ashaddu minhu quwatan kuwaasoo isaga ay ka mid ahaayeen kuwa ka xoog badan isaga ummadaha la halaagay waxaa ka mid uu raxmaanku yidhi kuwa ka xoog badan isaga wa agharu jamca tir ahaana kaba badanba yaa ka mid a kii xukumayay isaga ee fircoon ee uu arkayay baa ka mid a kuwan ka xoog badnaa ee uu shaqayn jiray ninkani gacanyaraha fircoon buu ahaa marka ummadahaasaa ka mid waa la leeyahy subxana wa tacaala maaragtay kana xoog badnaa kana badnaa tir ahaan alla wuxuu yidhi subxaana wa tacaala walaa yas'alu can dunuubihim almujrimuun allana lama weydiiyo dembiyada ay galaan mujrimiinta marka la halaaga kadib subxaana allah kadib maxaa dhacday marka sakadii waa uu diiday waana celintii iyo caqli celintii loo sameeyey waxa uu ka jawaabay adeer waxaan cilmi baan ku helay waa uu kibray kadib ugu dambayntii waxa uu keenay waxa la yidhaahdo baraid waxa weeye soo galbeedka kamada arag maalin kuwa naclada ku dhacday maaragtay xun ee maaragtay naagihii nimankii waxaan iska dhigay maalin ay soo ma arag magaalooyinku agun soo baxaan shaqadii qaaruun bay samaynayaan marka ilaahay kuwa ahligayo wallaahi ma dheera waana sababta alla subxana wa tacaala nebigu u yidhi waxaa tidhaahdaa nebiyow rabbi laa tajcalnii maca alqowmi daalimiin ilaahow hayga dhigin kuwa mid la jooga ku dhex jira qowm daalimiina because dadku markay saa u qooqaan saa u kibraan oo cadhada ilaahay ay kasbadaan oo xumaan kasbadaan halaaga ilaahay subxana wa tacaala anytime buu imaan karaa marka waa khatar ilaahay sharkooda hana dhaafiyo haddaad heli karta meelahaas inaad iskaga tagtaa kuu fiican qof muslim haddaad tahay oo ilaahay rasuulkiisa jecel kadib maxaa dhacday marka muxuu sameeyey marka uu soo mudaharaaday andhehe uu soo bannaan baxay sida mudaharaad oo kalea bannaanku yimid maalkiisiibuu keenay arrintani waa waxyaabaha iimaanka burburiya ku jirtaa oo maaragtay nuurkii iyo xaqii daboola oo laga dhigo adduunkiinu hadduu shaydaan yahay waana waxyaabaha alla subxaana wa tacaala isla markiiba uu soo fargasto ila dhegaysta faqaraja calaa qowmihi fii siinatihi kadibna qoomkiisii uu la soo baxay quruxdiisii fii siinatihi waa maalkii waa xoolihii waa fardihii waa wax alla wuxuu haystay ayuu qoomkiisii ula soo baxay magaaladii dhexdeedii buu soo bandhigay caruw ahaan buu ka dhigay damaashaad iyo dhulkiibuu magaaladiibuu qabsaday kadib maxaa dhacday marka waa kan qaala aladiina yuriiduuna xayaata dunyaa qaala aladiina waxay yidhaahdeen kuwii yuriiduuna doonayay xayaata dunyaa nolosha dhow alxayaat nolosha addunyaa dhow adduunyadan hadda aynu ku noolay kuwii jeclaa iska daciifka ahaa ogow hadda dadka 80% waa daciif waa dad maaragtay marba dhinac loo jeedin karo kadib dadkaasa waxay yidhaahdeen
يا ويلة لنا ورهلاك النجي مثل ما أوتي قارون ما نلصي وحقارون لسي مالك سي بأركان يقوقي سي كبر كيسي وحير هذين هلاك النجي ما نلصي وحقارون لسي وحير هذين إنه لذو حظ عظيم إنه قارون يسوق ولذو حظ عظيم ونن صاحبه وأهل المال بدنا ومال قبين يتاجر إسنعي بيرادين ونن آدو نصيب بدن ومال بدن يحول بدن لسي وين كدب حال على مركب هو علماءها آخرة كدورة أدوية يعني يوغرا أدوية هاين أدوية وجوه كلية وحيله هو أبورته هاين على عابدان أو أدوية نصيب كليهنا مغيبته كليه هو ذيك سدان آخر العلم جا هي وحير هذين وقال الذين أوتوا العلم وقال وحير هذين الذين كوي أوتوا العلم علم جلسي وإلكم ورهلاقيني وحب موجودني ثواب الله خير أبا المرنت إلهي باك خير بدن وحنو نكني هيستو يحولهني وحنو إذن تصيو إيمانكيني نوركيني كبابينيو أبا المرنت آخره إلهي باك خير بدن سبحانه وتعالى لمن ينو خير بدن تا أبا المرنت صاهرة لمن آما مرككو باد قف رمية عدي رميسة وعمل صالحا عمل صالحا سميستا كدي نوحي رادين ولا يلاقى لمن كل من أبا المرنتاس إلهيها أبا المرنتاس إلا الصابرون كوا صمرة يديبك أدونك يحنونك أدونك واتكيست معيني ما قرأتين أرنتو مركي هالكا مريسو ومدي كالغيب سنتي وددكي ماركتي إسكا ضعيف كهاوس ددك ودي بلادهم سيو بدينيهيني ماركتي شعب ويني أي ماركتي نبي موسى قالوا بقارين كتابكي الله قالوا بقارين أي الدنيا دي سحوليسي وحيسي أركين ماشا مركي أرنتي مريسو ninkan ogaada hadda ninkan ilaahay subxaana watacaala hore uu noogu sheegay inuu reer fircoon iyo waxaan u adeegi jiray isagoo waxbuu ilaahay ku ogyahay subxaana watacaala hase yeeshee alla subxaana watacaala waxaad ogaataa addoommadiisa ilaa uu rasuul soo diro ama uu ina tuso innaga oo markhaati ka noqonay dembigooda iyo xumaantooda iskama halaago soo wax garateen maaha kolka maxaa dhacday marka alla wuxuu subxaana watacaala fakhasafnaa bihi wa bidaarihi isaga iyo guryihiisii iyo maalkiisiiba الأرض دولك باللجوي فقصفنا وحن لجويني به سجي وبداره جويه سداره سي على الأرض دولك باللجوي زم دولك بالغي الله سبحانه وتعالى فما كان له من فئة منجرين كوحو جرجارتي سجا ينصرونه كوحو جرجارتي سجا ما يسنجرين إلهي معناها ديامر كيسي وحكي علين كريم مجرين من دون الله وإلهي كسكو كعلين كريم الله سبحانه وتعالى فما كان له من فئة ينصرونه ما يسنجرين كوح وجرجارته من دون الله إلهي كسكو معناها عد أمر إلهي كعلي كرت مجرين وما كان من المنتصرين يسوون موسى كمن عين كل لو جرجاري معناها كل يسولن بوال هلاقي عد عقابته لك علي كرتان سكيري دويا كدم حاد على مركب كوي شر لها هلاق النجي نمكن أن نصيب بدن ما نلصيه مال كان يحولها للسيء السجع والله سمايو معناها ماركتي كوي شل لها يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم كوي شل لها هلاك النجي ما نلصيه وحن يمال كانوا فرعون قارون هلي تيوجد هذا ماركي فرعون ذهب فرعون وهيستي وحاصرا كوي لها شلي نكن حولي سما وحنا لقسي مالكي سيسوي كاجع الله في سوحي هذين وأصبح الذين تمنوا مكانه وأصبح وحي صوبحين ووحي نقضين الذين كوي تمنوا مكانه كوي جعلا يسقى مقام كيسي ماشيسا معناها سوي سقى كوي جعلا بالأمس شلي جعلا كوي شلي لها معناها وأسان هذا يدين شيء هذه نكن حول بدن بالسي وحاسة سي ما أنا قلنا لصينا لكن نجو أيا يقولون وحي هذين ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويكأن ورهلاك النجي وهري عربي ويكأن معناها معجزة كلويا والله وأمر إلهي ويكأن ورهلاك النجي وأرنتني معجزة الله يبسط الرزق إلهي ويرزق وفدية لمن يشاء وعدوا دونه من عباده ودومه السكمدة ويقدر إسلام كان وقدره ويرى ويا معناها إلهي سبحانه وتعالى وحوي أيد معناه الله سبحانه وتعالى عدو الربنا تاجر جوجا كديجنا عدو الربنا ويرى ويا سواء قرتين معه كذي بحير هذين
لولا أن من الله علينا هدي وصل إلهي نقو من ذيسن أو وصل نقو قل ذيسن أو قل دي إلهي ينحرستي سي أيسن نهلين لغصفنا بنا أنا قد نقولك من اللي نقول هذا أنا أدوسن قل دي إلهي ينحرستي سي يو رحمة دي سي هدين من ندي هدين النهلين ويان رحمة دي سي قلك أنا قل نلا نقول لها كدب حي هذين وكأنه لا يفلح الكافرون وهلا قودي لا يفلح الكافرون هو قالوا بي ولقود ما أفلحان كذب الله سبحانه وتعالى أيضا كلام سكيدر يا لوحي تلك دار الآخرة تاسوا قرق آخره معناها تذكير وثواب آخرة كخير بدن لمن آمن وعمل صالحا صوما تذكر معنا علماء وحي يراهدين مالكنا دويد قيمة ملهان وكوي ريبن إسرائيل معنا علم قالسي هذا كل شيء الهاوية معنا الدويدين يقارون حاستي وحالي معنا ملهان يا والمرنت الله كخير بدن صوما الوعر تلك دار الآخرة تاسوا قرق آخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا نجعلها وحنوية لناصيرنا للذين لا يريدون كوي أن دون الدويد علوا إن يسكوا يسيان ويسسريسيان في الأرض يدونك العديسة أما دويدا ولا فساد ينكو سمين معناها غضتك مؤمنين تا سمراء حنوك عدونك وسمراء طلقاتا أيام وحير الله سبحانه وتعالى دارتاز عن سي وأنا قولي وارنتا وأنا نورش رنتا وقاذا كذب الله عبسوه قبل سبحانه وتعالى والعاقبة للمتقين عرفت قدام بيسانا وحالك هو إلهي كعبصدا سو حقرتين معه كلك نكي قارونها خياري وحوي تاسع كل علي كلك ما ركتي وحن رواينا نتصو خياري الدنيا ما أنت قارون مجوجا ها الدنيا ما أنت وحد جوجا تقارون كمال بدن كنجير for example qoyskan fiiri qoyskan rojaal baa la yidhaahdaa waa yuhuud soo magaca maaragtaan google garaya qoyskan rojaal la yidhaahdo bangiga dhexe maraykanka la yidhaha federal reserve dollarka maraykanka iyagaa leh 52% ay leeyihiin baa la yidhahdaa adigu waa 13 qoys oo yuhuuda ma garatay 60% maalka adduunka saddexda qoys baa leh qoyskuna ka mid yahay دولار كيجا عليه دولار كوا بريفت كورما دولار كذا ركتي أدوية جميستي يجا عليه يورو يجا عليه سو حاجة تما بريتش باوند كيجا عليه وحن سنترال بانك إذا دون كوردن أنك هين صدق وطن يجا عليه إيران كوبا ينورت كوريا صدق هذا بانكي أنك هين يجا عليه أول هريتو بانكي إذا أيسن كنترولو حكم إذا بانكي الصومالية ونكي بيلا الله صادري يفرماجي وقت جيز اللوز جي المعركة فنزويلا العراق سوريا ليبيا والله يتخلصي صدق على وضعنا وحمريكا ومانو البود وجهه والنورت كوريا كوبا يا إيران قويس كانوا بكونترولان العكتو ده ملها سواء غيره حجرتين معها IMF تنا يجاس كاي وبريفد أورجانيزيشن IMF تا وورلد بانك كان يجالي تأدونكم حد بنبا كل كقويس كاني وقارونكم عصبة قرنية وحلا وحمانة الدنيا كجرتها وحن كي نعلى تقول على قوم اللوط كا تقالنا نعلى تقول على مسلم قالوا حصلوا غيو وحاصلية كمسؤولة أو حكلم يا دكتين بقول كي بزديت نيشان ودن كان فلسطين إسرائيل الله بحيرنا يجاس كاي وبريفد بروبرتي جوده شنو طبعا ككل يهودنا يستوى وصفت إيمانه والبؤر ديان أيوليه مال بقرصنا ودن كان إسرائيل الله بحين وودن كلية خيار دويدا إن حدود شرعية لهين حدود دول علامتنا ويميل بريق الحرم بيربان فيديو قدامه ده واحد لقى غريب وانا جوه رميو صو حجرتين مع قيس كني مركب وقارون كقرنيجا شمبر والبؤر دقاقة أو جناعسي لقى سماين كرا دويدا يجعله كان بريد اللي هذا 504 جنس هذا مريكا جوكتين وارد مقشين 504 جنس وكان بيدي وين أبل معناها جوجل مايكروسوفت كل كوكاكولا كان بريد وين ويستي جوردن كل يجعله كل يجعله سو حجرتين مع وقارون كقرنية إن رب إسرائيل وحدوتين مركي قالوا إن يدي بعابدين تبي بعابدين لو عجل له خوار باليري دي بعضلي صومعها
culimadu adigu muslimku waxay yidhahdeen qaar cod buu lahaa oo ninkii saamiriya saaxiroolaha u sameeyey dhahaan saasoo kale qaarna waxay yidhahdeen dabayshaa gelaysay oo dahab baa laga sameeyey dibigaas golden calf bay ingiriiska dhahaan ingiriiska waxay dhahaan golden calf dibigaas miyaad ogtiin maanta meesha laga sawiray dibigaasi waa dibiga hor yaala wall street dibiga hor yaalla weeyaan khayaaray waa dibigan hortiina yaala hadda fiirsada soo ma aragtaan dibigaas waa dibigii ay reer bani israa'iil caabudeen waana dibiga ay nimankani hadda haystaan maaragtay ooy wixii dahabkii adduunku ku sameeyeen waxayna yidhaahdeen annaga ilaahnagu waa gold waa dahab bay yidhaahdeen ilaahnagu subxaan allah dibigii ay reer bani israa'iil u sujuudeen ee dahabka ahaa eed ogtahay dhibaatada ka soo gaadhay iyagiina maanta wall streetkoodu waa dahabka waana goldiga yidhaahdeen ogaada adduunkina goldi iyo silverka dahab iyo qalinkii way ka mamnuuceen adduunyadii oo dhanna waxay siiyeen bayber money bayber moneyga ingiriiska ayaa laga sameeyey markay taariikhdu ahayd 1694 bank of england baa ugu horreey meel adduunyada laga sameeyo bayber money lacag warqada soo wax garateen maaha nimankaasaa lahaa kadibna qoyskan roja la yidhahd magacan barta haddaad luqadda ingiriiska taqaana carabiga xataa ma aqaan saad ugu bedelaysid kadibna qoyskan baa la wareegay taariikhdu markay ahayd 1815kii maalin baan idinka sheekayn doonaa 1815 markay bank of england la wareegeen kadibna 1913kii 1913kii kan waa 1815kii 200 sano ku dhawaadna waxay la wareegeen bangiga dhexe ee maraykanka waxay noola baxeen federal reserve system wax kayda ma yaalo waa been waa bayber money federal reserve 1913kii markay sameeyeen maxaa dhacay mataqaanaa sanadkii ku xigay 1914kii dagaalkii koobaad bay rideen maadaama ay lacagtan heleen nato iyo ciidamada maraykanka iyo xoogga maraykankuna waa muruqa iyo masalka ay isticmaalaan in adduunyada kale ay ku dhacaan soo waxa garateen maaha kadibna maxaa dhacay 1914kii 3 sano gudaheed 1917kii waxay qabsadeen baytulquds waddankii falastiin ahaa iyo cusmaaniintii ka qabsadeen soo waxa garateen maaha waa sababta marka qarnigii 20aad ee hadda inaga dhamaaday loo yaqaano qarnigii yahuuda waayo 1914 ilaa 1918kii dagaalkii koobaad ee adduunka intuu socday waxay inqilaabeen 6 boqortooyo oo yurub xukumaysay ta ugu weyn oo cusmaaniyiinta ahayd boqortooyadii jarmalka austria-hungary boqortooyadii russia soo waxa garateen maaha wax alla wixii boqortooyooyinka yaryara ee yurub ka jiray waxaasoo dhan oon ingiriiska ahayn cagtay mariyeen waana qarnigoodii soo cagarteen maaha nimankana dahabkii iyo shaydaan bay caabudeen ogaada shaydaankuna waa kuu ku yidhi macnaha ilaahay noo sheegay subxana watacaala inuu ugu dhaartay biniaadanka uu yidhi macnaha adduunyadaanu qurxin doonaa digriga allana way ka tegi doonaan badankoodna kuu gaaloobi doonaan akhyaara videoga labada video aan ugu warramayo abuuridii aadan iyo casrimada shaydaanka labada video daawada ma garata warkayga marka qoyskani waa qoyska qaaruunka waktiga faamilkani waa qaaruunka waktiga ma aqaan gooru ilaahay subxana watacaala markiis ku soo socdo laakiin shakigama jiro anuu arday qur-aan baan ahay aada u bartay alla uu subxaanahu watacaala wuu ku soo socdaa gooru alla dhulka la goyn doona ama wax kale ku dhici doonto ma aqaana laakiin wallahu aclam hase yeeshee qoyskani waa qoyska adduunyada fasaadinaya wax kastoo la dilo meel walba adduunyada lagu dilo 1000 qof ka badan qoyskaasi iyo shaqaalahooda ka mas-uula si ay doolarkan u qaataanna laga soo bilaabo dagaalkii 1812kii war of 1812 oo America Ingiriisku galeen qoyskana ka dambeeyay because lacagta Mareykanka ay rabeen la qaataan 100 sano ay ku qaadateen lacagta Mareykanka la wareegaan 1812kii bilaabeen waxayna heleen 1913kii waxayna u direen 8 madaxweyne oo Mareykanka ah soo wax garateen ma aha kolka qoyskani waa gacan ku dhigli waana qaaruunka waqtiga insha Allah videogan oo isu daadkan baa gelin doona hadii halka laga saaro soo wax garateen khayr ma kolka aayadka wax rajeenaya inaad ku waan qaataan 10 idiin noqdaan adduunyada galbeedka wax la yiraahdana waa xira shaydaan ilaahay ka bariya irsaaq xalaala oo ka fadli badan inuu dhamaantiin Allah ina siiyo Allah inuu naga maarin siiyo Allah wax ka khayr badan noogu bedelo waa Sayyid Cabdiraxmaan Sheekh Xasan oo Yuusuf oo idila khayray intaan kulmi doono assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh la ilaaha illa allah